السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودال كسو دواذا متكيدا 10 اللغة الإنجليزية. 10 كان هو 10 كي لباد 10 دي أن دوانا بلوني كوسا ليسنا أساسكا أما بلوغا اللغة الإنجليزية. طبعا مركا 10 ويسعون دونان 10 كما أنت مركا وحو كوسا ليسين هي سلامها اللغة الإنجليزية iyo marka ay dadka kulmaan iyo marka dadka ay kala tagayaan iyo waqtiga marka waxa dhahnay hello and goodbye waa qayb kamid ah 10ka ama conversationada. marka waxaan dhahnay marka 3 short conversation. marka waxaan qaadan doonaa marka 3 conversations ayaan qaadan doonaa ama 3 maaragtay wada sheekaysi luqada Ingiriisiga. marka qaybta koowaad waxay ku salaysan tahay salaanta, qaybta labaad markay dadka kala tagayaan, iyo qaybta saddexaad oo ku salaysan waqtiga ama saacada sida qofka loo weydiiyo. marka saddexdaas qayb ayuu ka kooban yahay 10ka maanta. waa marka conversationka saddexda qayb ayuu ka kooban yahay. marka 10ka ayaan guud galaynaa. marka waxaan ku hormaraynaa qaybta hello ama qaybta salaanta ayaan ku hormaraynaa. marka waxaan ku xijinaynaa marka qaybta goodbye-ga. waxaan noo xigi doonaa marka qaybta waqtiga habka loo weydiiyo saacada sida loo weydiiyo ayaa noo xigta. marka saddexdan qayb ayuu ka kooban yahay. qaybta koowaad haddii aan ku hormarno waxaan dhahnay hello ayaan ku hormaraynaa. marka ayaa hadlay wuxuu yiri hello Peter, how are you Peter, sida ayaa tahay. marka halka magaca kaliya ayaa la gelin karaa. maxamed ayaa la karaa, cali ayaa la karaa, caasho, xaliimo, waxa doonto halka geli kaliya waa tusaale. hello waa salaanta luqada Ingiriisiga. Peter waa magaca. marka how are you sida tahay Peter. fine waan fiicanahay. marka fine eriga fine waxa la yiraahdaa waan fiicanahay. laakiin sidoo kale erigan fine mar waxa arki doontaa oo ay tahay ganaax. marka mar ay tahay ganaax ama qofkii lacag lagu ganaaxo ay tahay waad arki doontaa. laakiin hadda 10kan waxay ugu jirtaa fine waxa loo jeedaa hadda waan fiicanahay. thanks mahadsanid. how are you adna sida tahay ama how are you sida tahay. I'm fine waan fiicanahay. thanks mahadsanid. marka intaas waxay ahayd salaanta iyo qofka sidoo ugu jawaabayo ma aragtay xaaladiisa markii la weydiiyo. sida tahay waan fiicanahay waa mahadsan tahay. adna sida tahay waan fiicanahay sidoo kale waa mahadsan tahay. erigii marka waxaan ku xijinaynaa qaybtii goodbye-ga. goodbye sidaad waa mac salaama marka Soomaali ahaan. goodbye Janet. goodbye ayaa leeyahay. see you tomorrow. waxaan is arki doonaa berritoola ayaan is arki doonaa. waxay tiri marka bye bye Peter, nabadgelyo Peter, have a nice evening. maqribnimo wanaagsan. have a nice evening maqribnimo wanaagsan. ereyga evening waxa la yiraahdaa maqribkii. thanks mahadsanid. you too adna sidoo kale thanks waad mahadsantahay. qaybtan waa habka loo weydiiyo waqtiga marka saacada khaasatan saacada. excuse me iga raali noqo. can you tell me ma ii sheegi kartaa the time waqtiga please. fadlan ma ii sheegi kartaa waqtiga. yes of course ha dabcan. yes ha of course dabcan. it is waxa weeye 7 o'clock waa 7 ayay tahay saacada. thank you mahadsanid. no problem dhibaato ma lahan ama no problem hadda waxay ugu jirtaa dhibaato ma lahan way tahay sidoo kale. laakiin waxay ugu jirtaa yani qofku markii wax ku sheego uu ku mahadceliyo markii uu ku dhahayo oo kale yani ha u bixin oo kale ama dhibaato ma lahan ayaa loo isticmaala. marka qaybta labaad ee habka loo weydiiyo saacada
waxaan dhahnay eegii wuxuu yiri what time is it tii hore maxay ahayd can you tell me the time please ay ahayd tan waxa la yiri what time is it was isla meesha marka waxa kala duwan kaliya habka formulaha habka loo weydiiyay kaliya ayaa kala duwan laakiin waa isku meesha what time is it saacadu waa imisa it is 3:30 waa 3 oo 30 daqiiqo dhaaftay marka it is 3:30 waa marka 3 oo 30 daqiiqo dhaaftay marka waxa loola jeedaa 9 iyo bar sida Soomaalidu u taqaano ama 3 iyo barkii Soomaaligan marka it is 3:30 marka waa 30 daqiiqo ayay dhaaftay 3 marka thanks mahadsanid you are welcome marka adiga mudan marka you are welcome waxa yiraahdaa marka adiga mudan af Soomaaliha marka casharkan waa cashar muhiim ah khaasatan qaybtan dambe habka loo weydiiyo saacada marka ayaan dhihi karnaa marka qaybta koowaad conversation kan qaybtan waqtiga habka loo weydiiyo qaybta koowaad waxa ka muuqata hab maartay asluubaysan oo maartay xishmadaysan in qofkii wax weydiinayo wuxuu isticmaalay excuse me soo kale wuxuu isticmaalay please marka waxaad moodaa inuu yahay qof maartay uusan qofkan garanaynin oo kale markii su'aalaha weydiinayo waxyaabaha la isticmaalo qaybta dambana waa qof aad isgaranaysaan ama qof familiyaada ah ama qof saaxiibkaada ah oo kale markii isla markii aad wax weydiinayso qof aan isku cusbeen oo kale markii la hadlaysa ayaa la isticmaala marka what time is it waqtigu waa imisa laakiin qaybtii koowaad tusaale ahaan qof ayaa jidka iskaga hor timaadaan qofkii ma garanaysid wuxuu yahay marka waa inaad tiraahdaa iga raali noqo waqtiga fadlan waa imisa marka qaabka asluubta wax loo weydiiyo kaliya ayaa kala duwan laakiin fahamka iyo ujeedada waa isku sidii marka ayaa la dhihi karaa marka casharkii halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dabcan wuxuu ku saabsanaa ayaan dhahnay salaanta luqadda Ingiriisiga kala tag ama macsalaameynta iyo waqtiga marka inta cashar kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tagay sidaas iyo nabadgelyo